waa la weydiiyey waxaa rasuulka ilaahayow ka waran haddii ayna qabsadaan madax waxa ayagu ay naga rabaanna naga qaadanayaan wixii annaga aan ka rabnay bulsho ahaanna aan dib noogu soo celinayn maxaadna amraysaa qiyamkii iyo mabaadi'dii iyo tiirarkii uu nebigu ku dhisay ummadda iyo hoggaankeeda iyo maamulkeeda ka dhaxeeya waxaa ka mid ahaa inuu yahay islaam shaamilun inuu yahay yatanaawal jamiica madaahil xayaa dhinac walba maaragtay oo ka hadlahaya inuu yahay way rumaysnaayeen culamadu waxay yidhaahdeen weligii taariikhda laguma sheegin qof nidaameeyey maxaad u seexan weyday maalan qiimaha zamanka qofka hadduu yaqaano ma dayacayo qiimaha zamanka haddaanu garanaynina zamankii baa ka dayacmaaya wabitaali yandam dabeecad wanaagga marka waxay keenaysaa laba arrimood arrinta kooda waxaa waaya addoommada inay ku jeclaadaan oy ku marag furaan inaad addoon ilaahay oo saalix ah oo fiican tahay jannada meeshuu ku sarraysu helayaa ninkii dabeecaddiisu ay wanaagsan in aan isu dhiirigelin dhammaanteen in akhlaaqdeenna diinteenna habdhaqankeenna wanaagsan inaan ilaashanno aanan fahanno in aan ku dhegno inay tahay wax sharafka iyo qiimo aan ku yeelan karno wuxuu ku yidhi salaaddu waxaad ka dheefaysiin adduunyo qoobkee qurxeeyuu yidhi adduunyo marka la joogo qoobkee qurxee aakhirana waa ku qool furaysiin شأن الكوكب وأن أكون